أهقدي نبديتك إيو هديمو ولا قبوك سدايي إيو قدول كنه إيو وهيغانا أدمي قبل شدا وبال وانكو ترسدو هقدي نبديتك إيو هديمو ولا قبوك سدايي أهقدي نبديتك إيو هديمو ولا قبوك سدايي هاتشيرو أنيو بوليسكو هاتشيرو وحن حنبليينيا أهلي يدنيو غي أعنتي وشي نبدا هاتشيرو أنيو بوليسكو هاتشيرو وحن حنبليينيا أهلي يدنيو غي أعنتي وشي نبدا iyadoona wafdigani kormeerka ah uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah Janaraal Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo uu helinayeen maamulka gobolka City ayaa waxa mikrofoonka la wareegay gudoomiyaha gobolka City mudane Cabdiwali Maxamed Faarax oo dhankiisa la hadlay wax garadka ku dhaqan qabla xaarisa ee degmada Hardagaale jananka iyo ciidanka liyu booliska anoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka City boqolkiiba boqol waa mahad celinayna ciidanka liyu booliska halgankii ay ugu jireen ururada nabadeedka iyo argagixisadaba markay natiijo ka keeneen ayay maantana waxay taagan yihiin dadka abaaraysnaa walaalahooda oo soo barakacay xoolihii ka dhamaadeen meelaha qaarkood inay mushaharkooda ugu deeqaan oo bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid meel kasta ay ku geeyaan kagana qayb qaataan dadkooda dhibka ay hayaan inay soo arkaan taa mahad baan uga celinaynaa taa waxayna tusinaysaa wadaniyada iyo damiirka ciidanka liyu booliska ay leeyihiin iyo ka goonaanshaha inay shacabkooda maanta xalqadii meesha la oran jiray xaariso ay dadkooda ugu yimaadaan oo waxay qabaan ogaadaan isla markaana ay mushaharkooda raashin ay ka shaqeeyaan hooyooyinka gacantooda ugu qaybiyaan wax la heli karo wax Ilaahay loogu mahadiyo ayakana waan u mahad celinaynaa madaxweynuhu intaas oo jeer baa gaan yimid meelaha abaaruhu ka dhaceen 24 saac uu ka hadlaya shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta ay joogaan 61 degmo kale markii 7 City laga reebo shacabkii odayaashii waxay go'aamiyeen annaku raashin uma baahnin abaarna nama hayso walaalaha yaga gobolka City ba abaartu hayso raashinka loo wareejay bay raashinkii la inii qaysiinayay raashin ka badan oo 100,000 oo kintaal ka badan 100,000 oo qof raashinkood ka badan ayaa degmooyinka soo jiraan waxay dhaheen dadka abaartu hayso ee gobolka City u dhashay walaalaha yaga yaa nooga baahi badan loo geeyay odayaasha saxiixeen deegaanka Soomaalida waxaad arkaysaan oo raashin oo saad u qaadanayso soo haray meel walba lagu rusheeyay oo ilaa hadda soo socdo saakadana soo dhaafnay dadkii deegaanka kale gobolada kala deganaa baa yiri meesha noogu baahi badan ee gobolka City ee abaartu ka dhacay ee walaalaha ayaa naga mudan naga geeyay ciidanka liyu booliskana waad aragtaan dadaalada ay ka sameynayaan marka waxaa la rabaa inaad ku mahadisaan haddaad moodaysaan abaarta idinka kaliya inay danqayso inima danqayso 68 degmo kale dadka shacabka ay joogay arinta City gobolka City ama gobolka Shineele dhagtay ku hayaan rooma ka daay abaartii ma ka jabtay marka waxa la rabaa in hawsha loo socdo raashimadii baa soo socda dhar baa soo socda haweenkii deegaanka Soomaalida Itoobiya dharka shiidka bay ku soo deeqeen intaas oo dhar hadda soo socoto oo dumarka loo qaybin doono kabihii hadda ka hor waataan qaybinay haween baa soo dhibay xafsada heer deegaan baa soo dhibay gurmad fara badan baa la inii siinaya idinkuna waxaa rogaataan rag haddaad tihiin hooyada unbaa ilmihiiya maxasi inta jilicsan haysa kuwaasaa wax la gaarsiinaya inaad u samirtaan idinkuna dul qaadataan aad ka hashaan rabaa fariin baan rabaa in halkan ka gudbisto xoolihii waad aragteen ilaahay hadduu roobna siiyo waa meesha laakiin hadda xilliga lagu jiro waad garanaysaan waa xilligii jiilaalka macnaha abaartii
xoolaha wixii socon kara oo geel iyo maartay loo oo socon kara xoolaha in la lugaysiyo geela la saaro inta xooluhu ay socon karayaan ragow xoolaha xoolo lama quudin karo xoolo cunto lama gaarsiin karo cawsiga xoolo lama gaarsiin karo marka xooluhu meel baa roob ka daay deegaanka Soomaalida Itoobiya gobolkan faafan haday dhaafaan waxay galayaan daaq bay galayaan geela marka in la lugaysiyo laga saaro gobolka laga saaraan qaba meeshan guban aad leedihiin hadda xoolaha ku sii wadaan in wax ka jiraan aniga ilama aha roob kabada guban inta loo socdo faafan baa ka dhow baabil marka daaftid naqibaad galaysaa daaqibaad galaysaa shacabkuna waa la wacyi gali waa la in soo dhaweynaya geela halkaas geela halka hala geeyo geela hameenkiibu socdaa xilliga qorraxdu ka qabowdo geelay baan anagu banaaye xilligu socdo geela hadii la kaxiyo geela hala saaro gobolada kale hala geeyo geesta kalena waxaan wareysanay waxgaradkii ka soo qayb galay kulankani ee wadayaasheen taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah iyo maamulka gobolka City waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin deeqdani kaga timid ciidanka booliska gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka daran qaday dhibaatada ka soo gaadhay isbedelka cimilada waana kuwan qaar ka mid ah oo aan wareysanay aabayaal mahadalla aabayaal 15 goor mahadalla 15 goor aabayaalka ubadka yaga noo yimid meel dheer nooga yimid noo deeqda noo keenay salaanta noo 15 goor mahadalla waa iniga gudoonay 15 goor baa iniga gudoonay waa mahadalla dhibaatada horta xagga Ilaahay bay naga timid ilmi aadan naguma keenin xagga Ilaahay bay ka timid Ilaahay waan baryaynaa horeyna waan u baryaynaa imakana waan baryaynaa maxaa soo raacay gargaarka walaalaha yana goor horuu noo yimid ilaahayna waan ku mahadinay gargaarkii walaalaha noo keenayna waan ku mahadinay waan ku noolahay arsaaqda horey bay noogu timid walaalaha yaa noo keeno ilaahay baa noo keeno waan ku mahadinay maxaa soo raacay inta ciidanka walaalaha ay noo keenayna maanta timid deeqda meesha taal 15 goor baan walaalaha ku mahadinay 15 goor baan ku mahadinay waxa la wixii noo keentaan una soo gaadhay waan ku farxadnay waan ku shukrinay waan ku mahadinay imika waan ku noolaanay waan kaga kacnay darayadii waan kaga kacnay darowgii waan kaga kacnay abaartii waan ku shukrinay shankar iyo bariis dawladda waan ku mahadinay ciidanka walaalaha waan ku mahadinay booliiska waan ku mahadinay shukr lillaahi waan leenahay ya ilaahay ha adkeeyo jannadii allah nasii calanka reerkii jira allah niga dhiga waxaan ku mahadinay dawladda maanta timiday ee raashinka sida farxadda noo gaarsiisay ee oraxda ka naga kicisay iyaan ku mahadinay caafimaad bay na siisay cudurkii way naga kicisay ilaahay baa nasiyo way noo siiyay darayadii bay naga kicisay aanay noo keentay gorogoradii bay aan noo keento way naga kicisay bariis bay noo keento way naga kicisay ardaalkii bay noo keento isboolka ubadkii noo gelis way naga kicisay ardaalkii bay u keentay cagaagii bay naga reebtay ilaahay booliska ha liibaano waxa weeyaan horta abaartu siday noogu habsatay gurmadka noo yimid nolol maanta ma hayneen haday dawladdu maanta gacan nasiin abaarta ummadeedii dhammaan gobolkani meesha ugu baaxad weyn abaarta ugu xun ay ka dhacday baan nahay oo dadku ay si xun kolkay noo yimaadeen ay soo barakaceen dadka waxaad moodaysay inay dad baaba'ay hadda maanta ilaahay mahadii guul bay keeneen oo anfac bay maanta yaa qabtaa dawladda yaa gacanta ka bixisay waata kale waxaan mahad gaar ah u celinaynaa maanta ahaan ciidanka new booliska awoodiisa ubadkii ummaday ku soo deeqay oo mushaarkoodu soo jaray waa kuwa u qaybinaya ee maanta siiyay raashinka bariis iyo sokor labadaba iyaka mahad baan laga geydin walaalaha iyaga halka anfacoogii ubadkooga u qaybinayeen walaalahood ku soo deeqay salaam baan ku bixinayaa waxa diray iskay xidhay degta qoriga isuday
danta qaranka weeye dalka iyo dadkayga diintaan ku dhaartay daacad baan idiinahay daacad baan idiinahay waxaad diray iska ii xidhay degta qoriga ii sudhay danta qaranka weeye dalka iyo dadkayga diintaan ku dhaartay daacad baan idiinahay daacad baan idiin wafdigii uu hogaaminaya taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya Janaraal Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale oo ay wehelinayeen maamulka gobolka City ayaa u soo kactimay dhanka qabalaha farata ee ka tirsan degmada Shiniile ee gobolka City iyadoona uu kamid yahay qabalahani goobta la isku keenay dadka ay saameysay isbedelka cimilada adduunka gargaarkana ee wadana wafdigan uu hogaaminaya taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee isku jirtay raashinka sonkorta iyo bariiska ee ciidanka booliska gaarka uu tala galeen bulshada dhibaataysan ay saameysay roob yaraanta ka dhalatay isbedelka cimilada oo saameysay dalal badan adduunka ciidanka oo isku soo gooyay mushaarkooda isla markaasna ugu tala galay in lagu samatay bixiyo bulshada ay saameysay isbedelka cimilada ayaa haddaba waxa la soo gaarsiiyay bulshada ku dhaqan qabalaha farata ee ka tirsan degmada Shiniile ee gobolka City deeqdii ay ugu tala galeen ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka danqaday isla markaasna go'aansaday in ay mushaarkooda askari ilaa mas'uul isku soo gooyaan iyagoona ugu deeqay walaalahooda dhibaataysan ee baarta ku dhufatay dadka uga